dib loogu baray inkastoo mar taariikhda islaamka baal dahab ay ka galeen oo boqorka Itoobiya yani uu magangeliyo siiyay saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka soo haajiray dhulkii barakeysnaa ee ardul xabashi mid oo la sheego taariikhdii meeshii ugu horeysay ka soo degan in ay magaalada Saylac oo hadda Itoobiyaanku hamun u qabaan yani taariikh hore marka islaamka laga soo taray laakiin haddana waxa dhacay dagaal u dhaxeeyay muslimka iyo kristaanka waxaan aad u wada xasuusanaa buugaagtana lagu wada qoraa halgankii Imaam Axmed Gurey oo ahaa halgamaa Soomaaliyeed oo qarnigii 16aad la diray Abyssinia ilaa uu gaarsiiyay dhulkan Eritrea oo Itoobiyadan sare Itoobiya laba nooc waa Itoobiyada sare oo buuraleyda oo gobolada Tigrayda iyo Itoobiyada bariga ah waa ummadaha Oromada iyo Soomaalida iyo Canfarta waa ummad muslimiin ah oo inta badan Itoobiya aad u qabtay inay ka go'doonsan yihiin sidii marka la fiiriyo laakiin waagii dhexe qarniyada dhexe gumaysigu jiray ay dhulkaasi Itoobiya loo gacan galiyay Itoobiyadii saxda ahay oo Abyssinia la oran jiray waxay ahayd gobolka Tigrayda iyo dhulka Eritrea marka waxa way taariikh waaweyn ka dhaxeeya oo dagaal ah oo muslimka iyo kristaanka buubaana jira oo leeyahay futuuxatul xabasha oo lagu soo aruuriyay dagaaladii kristaanka iyo muslimka ee ka dhacay Itoobiya وقتي مرك إثيوبيا ما سيدي بدلان كنا قتي runtii Itoobiya badlaan waxay noqotay Eritrea ay marka hore ka tirsaneed Eritrea dagaal ayaa dhacay dagaalkaas wuxuu sababay in jamhad Eritrean ah oo hadda madaxweynaha wadanka Eritrea Siyaas Afwerki inuu ka guuleystay Itoobiya dekadiina la tagay marka dekadaas kadib Itoobiya waxay ku soo dhacday jasiirad 120 milyan dad ay ku nool yihiin oo aan wax dekada lahayn dekadaha ugu dhow ay isticmaali jireen dekada Dooraale ee Djibouti iyo hadda ay bilaabeen inay berbera isticmaalaan marka iyagu waxay ku anducoonayaan u leeyihiin waxaan rabnaa in horumarka gobolka maadaama gobolka regionka Afrika ay isticmaali jireen dekada Dooraale ee dad badan iyo hadda ay bilaabeen in dadkan badlaan lagu heeyka iyagu waxay ku anducoonayaan boqorka Itoobiya soo rabnaa in horumarka gobolka Itoobiyaanka riyada qofka Itoobiyaanka regionka maalin ay isticmaali jireen ay ku ilaalinayaan in helaan dad badan gaar ahaan badacas badlaan iska fasaxay sagaashan saddexdii dagaal laga qaaday dagaal dhacay oo Eritrea jamhadii TPL jamhadii Itoobiya jamhadii Eritrea dagaal dhexmaray baa looga qaaday duco lagama qaadin marka Itoobiya saas bad ku weysay Itoobiya marka wixii burburkii Soomaaliya iyadoo ka faa'iideysanaysa intaas oo dhan waxay isku dayaysay in uu bad hesho laakiin wixii dhacay 2024 waxay ahayd yani bamba loo qarxiyay geeska Afrika oo geopoliticska geeska Afrika wax badan ka bedelay Itoobiyana u sahlay inay Somaliland oo gobol Soomaaliya ka tirsan sida qaanuunka caalamiga uu sheegayo inay aqoonsi doonaan kadibna bad ay ka qaadan doonaan taasina dawladdu waxay sameeyay dadaal fara badan oo runtii 12 bilood oo wuxuu ahaa dagaal diblomaasiya la galay dagaal afka iyo gacanta ah meel kasta Soomaaliya ku wareegsanaysay Soomaaliya guusha ay heshay waxay ahayd in adduunku isbarbar istaago Soomaaliya oo wadan soo kobcaya oo dawladnimadiisa soo kobcaya oo la doonayo inuu isbedel ugu sameeyo marka adduunkii baa Itoobiya wuxuu arkay in Soomaaliya laga gardaran yahay Soomaaliya guusha ay heshay soo marka 12 bilood halgan ahaa oo madaxda Soomaalida ay meel kasta galayeen aakhir waxay u muuqtaa inay guul daraysay markay isdiibeen mar wadii aad saawayska ay xaadireen niyo hoomaya dadku inta badan waxa ay badan isku qaldaan haddii maanta jaakatiinkaaga aan kugu la dhaw waa inaad ka garbaxay adoo ataa laga gardaran mararka qaar waa inaad banaanka iskeentida oo wada hadal la sameeyo sharciga caalamiga ahi international law of sea marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa wadan kasta oo aan bad lahayn wuxuu xaq u leeyahay wadamada badal xaq inuu ka helo marin ganacsi oo access oo biyaha baddaas ku gaari karo
marka Ethiopia markii la fiiriyo xaq way u leedahay si nabad ah oo inay ku gaarto xeebaha Soomaaliya oo ay ganacsi ka samaysto laakiin wixii laga dagaalamay waxay ahayd inay dhul qaadato Ethiopia looma diidan inay ganacsi samaysato dunyada la jaan qaado oo xiriirka ganacsi labada dal Ethiopia kaliya faa'iido macna ka faa'iido dekedina la maalgashana marka Ethiopia waxa loo diidaayay oo dawladda